magaalada Marka oo ah magaalo xadaari ah isla markaana leh xeeb dheer xilligii dawladda dhaxana laga dhoofin jiray wax soo saarka gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan mooska ayaa burburkii dawladda dhexe kadib waxa isku badbedelay dhowr xukun oo kala duwan sida qabqablayaal dagaal argagixiso iyadoo dhowr sano ay xukumayeen maleeshiyada al-shabaab magaalada Marka ay geysteen xasuuq intii ay xukumayeen al-shabaab waxa ay goob fagaaraha ku toogteen qaar ka mid ah dhalinyaradii ku noolaa magaalada Marka iyadoo wali reer Marka ay gocanayaan xasuuqii al-shabaab dhowr sano Marka waxa ay martigelisay dagaal beeleedyo waxa magaalada iyo deegaanada hoos yimaada ka socday dagaal saameyn weyn ku yeeshay nolosha dadka iyo dunyada magaaladan Marka 2018 ilaa 19 wixii ka horreeyay waxay ku sugnaaday waa wada ogsoonahay waana wada garan karnaa xaaladeedu sida ay ahayd run ahaantii magaalada Marka 19 wixii ka horreeyay ma lisdhaynin halkan ayaa dad isku noolaa kara ama dad isku nool yahay lisma lahaynin laakiin ilaahay mahadiiso dadaal dheer iyo juhdi badan ee ay dawladdu gelisay dhibaatadii iyo burburkii iyo dagaaladii sokeeyay ee faraha badnaa dadku barakiciyay magaaladiina dumiyay qarribay alxamdulillah dadaal dheer kadib way ka soo kabatay magaaladu waxaan isleenahay maanta wajiga ay leedahay wajidii ay 18 la heeday aad iyo aad ayay u kala dheer tahay firqi weyn waa u dhaxeeyaa maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dadaal badan geliyay Marka waxaana gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose uu martigeliyay shirar xal loogu raadinayo colaadda maadaama ay tahay Marka magaalo madaxda gobolka ugu dambeeyna lagu guuleystay Marka annaga waxaan ka keenay maamulkeena gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya meel fog ayaan ka keenay runtii waxay ahayd magaalo aad u burbursan dadkeeda ay colaada runtii ragaadiyeen amni aan ka jirin bulshada la kala geeyay oo xitaa iska daayay dadka bani aadamka xayawaankii ku noolaa magaalada xitaa uu ka qaxay waxaan u imaanay magaalo geeda ay ka wada baxeen oo qof nolol doona mustaqbal doona uusan ku noolaan karin dhammaan kaabayaashii waxbarashada degmada way burbureen waxaa burburay sidaas la mid ah kii ganacsiga waxaa burburay caafimaadkii dadaal fara badan oo ay Koonfur Galbeed gelisay iyo dawladda federaalka ah ee runtii ugu horeeyo madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo halkan yimid muddona joogay waliba iyo shirar dib u heshiisiin ah ay Koonfur Galbeed ay u qabatay dadkii colaadaha ka dhaxeeyay oo shabaabna qayb ka ahaa oo colaadda waxaa hurinayay marba dhinaca kale bensiin ku shubayay kooxdan argagixisada ee al-shabaab oo aanan rabin deganaansho oo aanan rabin nabad oo runtii fursadda keliya ay haystaan oo dalkan ay ugu dhugmaalaysan karaan ay tahay inay colaad abuuraan si ay ayagu ugu noqoto meel gabaad ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo safar shaqo ku gaaray Marka si uu u dhameystiro heshiisyadii labada beelood ayaa nabad waarta dhex dhigay qabaa'ilaadkii dagaalamayay isagoo difaacyada ka soo saaray maleeshiyaadkii dagaalka qabiil u dhaxeeyay sanado badan haddana wadajir ula dagaalama al-shabaab reer Marka waa dad wanaagsan waa dad wadaniyiin ah waa dad dawlad jecel waa taasoo dawladdiina halkan idinkugu timid maanta inaan imaado halkan oo ciidamadu waa halkan yimaadaan oo wuxuushaas argagixisada halkan uga horeyno waxay ku timid jawaabtii ay ka soo jawaabeen dalabkaygii ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed oo maanta halkan idinla jooga qaarkood
marka ayaa iska meertay mahadhooyinkii soo maray waxayna furtay buuq cusub oo lagu qorayo nabad, wada noolaasho iyo horumar ay dowladda horkacayso. dhowr mar waxaa safarro shaqo ku tagay magaalada gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya si loo xoojiyo nabadda iyo sidii loo soo celin lahaa nolosha magaalada. maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo maamulka degmada Marka ayaa durba bilaabay nalaynta magaalada, dhisidda iskuulo, garoomo kubadda cagta, xarunta maamulka degmada, suuqyo, furista wadooyin xirna, daadejinta nidaamka dawliga ah, kusoo dabaalista magaalada amni la isku haleyn karo. gudoomiyaha degmada Marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafow ayaa sheegay in magaalada Marka ay hadda soo kabanayso, isagoo ugu baaqay dadka ka soo jeeda magaalada Marka ee iminka ka maqan inay dib ugu soo laabtaan isla markaana ay maalgashtaan degmada. nolol xumo iyo nabadgelyo darre ayay ugu maqan yihiin isma dhahayo. waxaan leeyahay dadka maanta magaalada Marka ka maqan waxaa ka dhumayo fursad ama noloshii ay horay ugu noolaa jireen waagii ay magaalada Marka aheeday quruxda badneeday, dalxiisaska iyo shaqooyinka loogu imaan jiray. noloshii markaa lagu noolaa jiray mid u sii dhow ama mid ku sii socota ayaa ka jirta magaalada Marka. qof kasta oo ka maqan waxaan leeyahay magaalada Marka ku soo noqda, deegaanadiina ku soo noqda, dalkiina dib u dhista, guryihiina iyo muxuu ahaay dib ha loogu soo laabto. magaaladii way qurux badnaatay siday shalay aheeday, maanta ma ahin. marka sidaa darteed waxaan leeyahay qof kasta oo magaalada Marka deegaan ku ah oona ka maqan waa inuu isku soo noqdaa, deegaanadiisu camirtaa, nooleystaa. maamulka degmada ayaa si buuxda hadda ugu shaqeeya xaruntiisa iyadoo bulshada loogu adeego. magaalada Marka hadda waxaa ku yaala isbitaalka weyn ee gobolka oo u baahan garab istaag iyo iskuulo uu maamulka dhisay, waxna lagu baro ardayda degmada. xilliga habeenkii waxaa magaalada ka jira ganacsi halka dhallinyaradana ay cayaaraan kubadda cagta iyagoo ka faa'iideysanaya leerarka cadceedda ku shaqeeya. magaalada Marka waxaa hoos taga deegaanada Buufow, Ceel Jaalle, Shalambood iyo Janaale oo dhammaan uu ka jiro maamul loona daadajiyo nidaamka dawliga. deegaanka Janaale oo dhawaan laga saaray al-shabaab ayaa hadda ku jira xaalad soo kabasho ah iyadoo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo kan degmada Marka uu magaalada geliyay leerarka ku shaqeeya cadceedda, sidoo kalena laga fuliyay mashaariic kale oo muhiim u ah bulshada. Janaale oo ah dhul wax soo saar allana uu ku manaystay barwaaqo ayaa waxaa ka soo go'a dalagyo badan oo loo suuq geeyo magaalooyinka dalka, waxaana ammaanka guud ee magaalada gacanta ku haya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo wada shaqeyn dhow la leh shacabka. waxaana meesha ka baxay hagadaamooyinkii ay isku dayi jireen argagixisada al-shabaab ee lagu dhibaateynayay shacabka, iyadoo xilliga habeenkii ay magaaladu tahay mid ka faa'iideysatay leerarka cadceedda. waxaana dhawaan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose dhagax dhigay xarunta maamulka deegaanka ku shaqeyn doono. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa isbarbardhig ku sameynaya markadii hore iyo tan cusub ee maanta jirta. waxaan haysanaa Marka hormuudka ah horumarka gobolka Shabeellaha Hoose, Marka diyaar u ah inay cid walba soo dhaweyso, Marka diyaar u ah inay ka shaqeyso midnimadeeda, wadajirkeeda iyo xasiloonideeda. taasaa noo fududeysay in magaaladan nawaaxigeeda lagaga adkaado kooxda nabadiidka ee al-shabaab. taas waxay keentay in cid walba oo degmadan ku nool iyo nawaaxigeeda inay u diyaar garowdo kaalinteeda inay ka qaadato xasiloonidii wadajirka iyo nabadda ka jirta hadda degmadan. marka markada maanta aan haysano ma aha markadii aan haysanay sanadii bar ka hor. farqi weyn ayaa u dhexeeya. runtii waxaa laga fuliyey mashaariic aad u fara badan. mashaariicda hadda ugu dambeyso Marka ka socda waxaa kow ka ah xarunta gobolka oo hadda dhismo ka bilowday, oo muddo 30 sano kadib markii ugu horeysay gobolka xaruntiisa la dhisana ay tahay. taasoo dadaal fara badan annaga aan ku bixinay, taasoo nagu dhiirigelisay markaan arkay aan aragnay annaga ka maamul ahaan. markaan aragnay ka maamul ahaan
xasiloonida iyo horumarka shacabka marka maamulkooda iyo amnigooda ay u diyaarsan yihiin markaan aragnay nagu dhiirigelisay in xaruntii gobolka halkan laga dhiso si shaqooyinkii gobolka u yaalay degmooyinkiisa kale halkan looga hogaamiyo haddii aan la idmo marka waxay hiigsanaysaa runtii horumar aad u fiican oo aan is leenahay sanadka soo socda waxay gaari doontaa in cid walba ay halkan shaqo usoo doonato. kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan marka ayaa ku baratamaya tartan kubadda cagta ah oo maamulka degmada u qabtay si loo xoojiyo isdhexgalka bulshada maadaama dhalinyaradu ay yihiin udubdhaxaadka bulshada. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guutada 14 Oktoobar iyo ciidanka NISA ayaa gacanta ku haya ammaanka magaalada iyadoo saraakiisha ciidanka maamulka degmada iyo shacabka ay ka dhaxayso wada shaqayn joogto ah waxaana shahaadooyin lagu dhiirigelinayay saraakiishaas isla markaana looga mahadcelinayay shaqada adag ay qabteen la guddoonsiiyay. magaalada ayaa hadda waxaa ka socda dhismaha xarunta maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo dhawaan ku shaqayn doono gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa taa oo muujinaysa in marka ay hadda tahay magaalo xasiloon.